هيا ummadda Soomaaliyeed salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin meel walba oo dunida dacaladeeda ka joogtaan teeda kale waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre waad guuleysateen odayga yaraaya Axmed Madoobe shilal baa la geliyay shilal wuxuu joobay baan maqli jiray wuxuu joobay isaga is xujeeyay caawa waxay maraysaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto inay faraxsanaato nin walba oo askar yar ama ciidan yar meel ku haystana sidaas baa u dambeyn doonta waxay maraysaa maanta inay ciidankiisii intooda badan diyaar u yihiin inay dawladda federaalka soo dhawaato oo ay Kismaayo ku soo dhawaato si ay ugu biiraan waxaad ku garanaysaa midaas in askari walba oo kamid oo ciidanka federaalku ay ku dhawaadaan ama habarmacad ku dhawaadaan wuu soo dhiibaya waxa midda ku cadeynaysa marka dadka la jooga Axmed Madoobe kulligood inay cabsi ku nool yihiin inay argagax ku nool yihiin inay yaa mar idin dhaafiyo ku nool yihiin ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo leeyahay ka gaara dadka dhibaatada hayso waa hubaal inaan hal xabba kaga soo dhacayn dawladda Soomaaliya iyo ciidankeeda magaalada Kismaayo hal xabba kaga soo dhici mayso ee ciidamada uu ku faanayo oo haysto kulligood waxay soo raacayaan ciidanka dawladda sheergareeya barnaamijka ummadda Soomaaliyeed waynu guuleysanay guushi way soo socotaa maalmo yar baa ka haray Axmed Madoobe la laalaadinayo baynu sugaynaa inta badan Soomaaliyeed horta barnaamijka sheergareeya cadawoo dhan wuu jabay nacasoo dhan waa tagay waaf good hope my brother waan ku salaamayaa aad baan ku salaamayaa aad iyo aad baan ku salaamayaa Axmed Samiir waan ku salaamayaa adigana soo dhawaada inta meesha ku jirta dhamaantiin waan idin salaamayaa barnaamijka sheergareeya odaygii Axmed Madoobe ahaa wuu dhex yaalaa dhex fadhiya ma maqli jirteen dhex fadhiya wuu dhex fadhiyaa baxar sitin waxaa la yiri ku cimro qaado facaa inaad ku cimro qaadato ninka la yiraahdo daniyow inaad ku cimro qaadato ayaa laga sugayaa haddaad ku cimro qaadan weydo bartaada lagu iman odayga yaraaya Axmed Madoobe faaladiisa aan idin wado xaar buu ku fadhiyaa maanta oo dhan wuu cabaadayay cabaadkiisa cabaad ka batay Soomaaliyeed dawladdu waa inay ciidamada kala noqotaa meesha kala noqonaysa ma Kenya ma hadda meesha waa Soomaaliya waa Kismaayo dawlad kale waxay dhigi kartaa ciidamada naga noqo marka laga xoog barto tan Soomaali baa iskale kuwa ku soo socdaana waa Soomaali hawlwelin marka iska soo wareeji adeerado aayara soo dhiib hal lagu maxkamadeeyo oo golow in badan baad soo raaxaysatay markan waa markii adiga lagu ciqaab lahaa waa markii lagu amal weydiin lahaa waa markii lagu arkay adeer way isku dhamaatay wiilasha yar ee wadanka u kacay ilaahay ha quweeyo horta dhakada ku soo wada dhaga nin walba oo edab darrada 30 sanadood inagu waday dhakada ku soo wada dhaga war dawladii Maxamed Siyaad Barre anagana lagu riday wayna isticmaalaan maskax ma aan lahayn waanu yaryareen aqli ma aan lahayn laakiin maanta ninka 30 jirka ah yaa lagu sheegin anaga midina loo sheegay jannad galaysan Maxamed Siyaad Barre hadaa ridaano 30 sanadood god lagu sii wado Maxamed Siyaad Barre wixii riday anaga ahaayeen cali mahdi iyo caydiid iyo ay u isticmaalayeen marka iyaga ma ahayn wixii riday dhalinyaro Soomaaliyeed oo 30 jir ah oo ciida ay ka hoos mariyeen bay ahaayeen maantana wiilka dhalinyarada ee 30 jirka ayaa waxa loo sheegayaa inaan dawladda jirin hadii dawladda la rido mid kale oo ka udgoon badan iyo mid kale oo jannada geynaysa oo imaanaysa ma jirto wax imaanaya mala 30 sano kala hoos socon doonta ku adkaysta Soomaaliyeed meesha aynu taaganahay waa meesha ugu fiicnayd 30 sanadood oo wadankeena ay colaad iyo dhibaato iyo rafaad u ka jiray 30 years meesha ugu fiicnayd aynu taaganahay maanta gacmaha aan isqabsano shantan nin ee ummadda dhibaataysay ee silaca ku haysa ee rafaadka ku haysa ee hooyooyinka Soomaaliyeed inay harsadaan u diiday inaynu iska soo qabanno aynu u midayno maanta waxaan hubaa meesha la yiraahdo Puntland
qof walba oo Puntland ku nool wuxuu naawulayaa ama sugayaa inay dawladda Soomaaliya xagooda u soo dhaqaaqdo inay dawladda Soomaaliya Puntland ay u dhaqaaqdo ayuu sugayaa askari ha ahaado shicib ha ahaado xildhibaan ha ahaado qof kale ha ahaado wasiir ha ahaado dadku dawladda Soomaaliya ayay sugayaan waa mid Kismaayo ka taagan oo kale waxaa la hubaa maalinta garowa lagu dhawaado dadkoo dhan inay ka mid noqonayaan dawladda Soomaaliya laakiin waa la kala qoqobay qori baa lagu haystaa xoog baa lagu haystaa Maxamed Siyaad Barre maba ahayn dictatorada dani iyo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe labada dictator haddaan la iska qaban ummadda Soomaaliyeed ay horena looma soconayo dibna looma noqon karo god iyo boholayd ka dambeeya iska qabta kuwii diinta ku qaraaban jiray way dhamaadeen ahlu sunna way dhamaatay al-shabaab wax la yiraahdo way isku dhamaatay Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ninka la yiraahdo Sheekh Shariif intaas ayaa maanta al-shabaab kala ma jirto way dhamaatay wax al-shabaab la yiraahdo Soomaaliyay yaan la idinku qaraaban yaan la idinku sameeynin kala qaybin yaan la idin isticmaalin waxaad sameysaan qof walba oo Soomaaliya dawladda maanta jirta dhinaca ka qabsado hana support gareeyo iyada meel barwaaqo oo higsi la geynaysa libaaxyada inoo kacay haddaynan inagu garab istaagin wallahi meel ma gaarayaan waxaynu aadaynaa meeshaynu ka nimid 30 sano ka hor meeshaynu ka nimid ayaynu dib u noqonaynaa ma waxaan abda ka sugaynaa nimanka maanta Ankara fadhiya ee la ciidan ma sameysanaynaa ma kuwaasaynu abda ka sugaynaa ma kuwaasaynu sharaf ka sugaynaa ma kuwaasaynu dadnimo ka sugaynaa xoog bay rabaan inay nagu qabsadaan kana yeelimayno waan diidnay in xoogna lagu haysto waan diidnay Sheekh Shariif oo madaxaaga gali ciidamada aad sameysanaad sheegayso waa dhalinyaro Soomaaliyeed hal cunuga adigu aad la sheexita ku soo dirmays wallahi laba ilmahaaga kamid ah hadaa ku soo darto anaa ku soo garab istaagay haddaad laba cunugood dhashay Sheekh Shariifow aad ku soo darto ciidamada aad ku faanaysaad leedahay waan sameysanayaa anaa ku soo garab istaagay been kuma sheegay qorigaan ku qaadanaya meel alla meeshan jooga tigid anaa soo goosanayna ku iimaanay waa ka amar qaadan laba cunugo adigu aad dhashay iyo laba walaalka dhalan ku soo dar waan ka qaadan markaas laakiin inaad wiil Soomaaliyeed oo 30 jira oo dhaxal leh oo duni leh oo guur leh oo dhaqan raba oo nolol raba oo mustaqbal raba inaad maanta tiraahdo askari baan ka soo dhiganayaa dawladdan kula dagaalamaya nafarka yeelay taas ma laha ku daalin marka waxaad yeelaysaan ummadda Soomaaliyeed Axmed Madoobe iyo nin walba oo qabiil daba taagan sheekadiisu way soo maratay ma maqli jirteen way maratay maalmaha soo socda ugu yaraan anigu waxaan u qabtay 10 days 10 cisho ka bacdi oday Axmed Madoobe iyo Jubbaland iyo Kismaayo Jubbaland gacantiisa way ka dhamaatay horta isagii Jubbaland way kala dhamaadeen magaalada Kismaayo la yiraahdo iyo Axmed Madoobe way kala dhamaanayaan awooddaasna Ilaahay baa na siiyay Ilaahay baa na quweeyay Ilaahay baa wax walba na siiyay alxamdulillah inta niraahno aynu iimaansanno kuwa maanta inoo talinaya cabsanina waradaa cabsanaysaan xitaa aniga ii sheergareeya ana xitaa shaatiga soo siibtay in la aqoonsado oo la yiraahdo wallahi waa kii xabada lagu dhufto ninkii xabada ugu dhufan kara ha ugu dhuftay ii sheergareeya idinku dambi kuma liidin ninkii aniga ii dili kara ha ii dilo ii sheergareeya waafow dacar dayax baa la yiraahdaa sax waaye waa dacar dayax si fiican ugu sheeg nin baqa ma hadhe ma baqo waa ku salaamaya saaxib dacar dayaxda xageed wada baasha in la isfashilo looma baahnayn waafow dadku dacartuna iska haystaan dacar nabad iyo nolol baa ugu soo daray ma tii kibtoon baad keentay meesha la ya wallahi saaxib waa fashishay koode salut waa ku salaamay saaxib waa fashilanay waa ku jeedaa ummadda Soomaaliyeed yaan been leedin sheegay xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay inay Soomaalinimadii soo noqotay in qabkii Soomaaliyeed soo noqday in ay wax walba gacanteena ku soo noqdeen oo ay ka dhiman yihiin maalmo yar
soddon sanaynu soo sabarnay maalmo yar inaynu sabri weyno waa inoo doqoniimo madaxda Soomaaliya waxaan u sheegayaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayrow waxaan idin sheegayaa in aad wax allaale iyo waxaad samayn kartaanba war haday noqonayso xitaa afgambi adalka ku qabataan kabacdi aad xukunka dadka shacabka ku soo celisaan hadii laga maaro waayo laakiin waan idinka baryaynaa waan idinka codsanaynaa cadowga ha nooga tagina bartaad haysaan ka wada bartaad kaga taagantihiin kaga wada hadday noqoto inaanu soo baxno oo aanu tigir soo goosano oo aanu Soomaaliya nimaadno oo aanu qori idin la garab istaagno wallahi waa sameeynaa oo billaahi oo tallaahi waa sameeynaa shalay maxamed siyaad barra anaga ridniyo odayga qabla iyo cali mahdi iyo bururuc iyo caydiid ma ridniyo beenku ma sheega anaga ridni anaga lagu dumiyay maantana anaga diyaar ku ah dalka inaan kula difaacno dalka inaan kula qabanno ummadda inaan kula badbaadino anaga diyaar u amaanto waa soo baxayna diyaaradaha soo raacayna tigidhaha soo goosanayna boqolaal kun oo dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa igu raaciyaan u malanaya war inta igu ragayahay sax waayo soo qora Ahmed Dibad waan ka qaaday brada soo dhawow aad baan ku soo dhaweynaya waan ku salaamayaa saaxiibkay long time aad baan ku salaamayaa saaxiib Abdulqaadir Daahiye saaxiib ma Abdulqaadir Daahiye waxaad soo noqotay nabad iyo nolol waa laga soo guuray wixii kale soo maha aad baan ku salaamayaa waan ku soo dhaweynayaa nabad iyo nolol meel loo dhaafo ma jirto Abdulqaadir Daahiye soo dhawow saaxiib welcome to nabad iyo nolol in badan baad mucaarid ahayd in badan baad Cabdiraxmaan Cabdishakuur taageertay laakiin alxamdulillah maanta haddaad aragtay xaqiiqada oo aniga adigu in badan baynu ku muranay arrimahaas haddaad maanta ogaatay xaqiiqada welcome baan ku leeyahay waan ku soo dhaweynayaa oday yaraa duqbilow ahaaba intuu iswaalay oo cararayo baq yiri haddana rituun isagoon sharaf lahayn laakiin waan soo dhaweynaynaa annaga nabad iyo nolol baan la yiraahdaa wax alliyaala iyo wixii mucaarid nagu waxba nagama dhimayaan intana jecel ee aaminsan intaasaan uga badanba billahi tallaahi 100 kun oo qof oo nabad iyo nolol taageersan haddaan helno haddaanu nahay xitaa waan isku kalsoonahay laakiin alxamdulillah maanta dhalinyarada Soomaaliyeed kulligood waxay u badatay nabad iyo nolol profiilada dadka waxa u saaran waa nabad iyo nolol iyo madaxda Soomaaliya Allahu akbar waan guuleysanay 2021ka diyaar waa soo noqonaynaa taas meel baanu saaranay 45 milyan ee dollar ee bangiga Soomaaliya maanta ku jirta ayaanu ku qaadanay dawladnimada nabad iyo nolol baanu ku qaadanay sheer gareeya barnaamijkaanu kor taagnaa maxaad noo kor dhubantii na taageera oo noo support gareeya oo na taageera sheer gareeya barnaamijka inta nabad iyo nolol taageersan ay kulligiin ku qabto horta Abdullaahi Daahiye Cabdiqaadir Daahiye laba xabo sheer ku qabo hadaad nabad iyo nolol ku soo biirtay intaas kaaga xidhan laba xabo sheer ku qabo ku dhaay waa welcome back horta most wallahi waan ku soo dhaweynayaa aad iyo aad waan kugu faraxsanahay I'm happy for you brother to come back with your senses shaab haya waan ku salaamayaa brother si share garee barnaamijka ummadda Soomaaliyeed ay xaqiiqadu waxay tagtay in dalka Soomaaliya uu fariin fiican maanta bixinayo horumarkiina la gaaray loona jeedo reerka meesha lagu furayana ay barwaaqo tahay ayaa loo dhawaaday waana la joogaa inta inaga dhimanna waa dhameystiranaynaa ii sheergareeya barnaamijka tala iyo tusaale qof walba oo Soomaaliya waxa laga rabaa inuu inta barnaamij sameeyo ama xoog sameeyo ama hanti sameeyo ama uu sameeyo wax kale oo uu ku tubood garoon karo Soomaalinimada iyo dawladnimada inuu sameeyo meel allaale iyo meeshaad ka taageerto dalkaaga wax uga qabatay hadal haddaad ku taageerto haddaad lacag ku taageerto haddaad xoog aad ku taageerto haddaad ku taageerto inaad qoriga qaadato aad dhufayska gasho waa midka ugu muhiimsan wiilasha dhufayska ku jira waa qolada inoogu qaalisan ee dhigooda bixinaya inteena kale waxa la inooga baahan yahay inaynu si fiican ula hadalno dadka waanino
wacyigelin samayno dhalinyarada Soomaaliyeedna aynu dib soo celino odayaashan beeshinka ee loogu talagalay inay beeshin qaataan waqtigoodii gabay aynu dhinac iska marsiino dalkeena maanta waad aragteen waxa maamula waa wiilal dhalinyaro oo caaboon waa dhiilal shabaab ah waa wiilal wax bartay waa wiilal caqli leh waa dad la soo xulay sideedabana markaad qof caqli leh oo caqliga u saaxiibka ah madax aad ka dhigato wuxuu ku keenayaa dad caqliga u saaxiiba dhalinyaro buu ku keeni dhalinyaro wax og damiir leh damqanaysa war 30 sanadood odayaal 90 jiro 80 jiro 70 jiro 60 jiro baan soo hor dhoobnaaba seekadu midii hore waa ka duwanta dad caafimaad qaba iyo dal caafimaad qaba ayaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed aan keensano caqligeena aan ku shaqeyno dhalinyaranimada aan ku shaqeyno aynu dadkeena wacyi gelino qof walba oo Soomaaliya waajib ayaa ka saaran dalkiisa meeshaad ka taakuleen karta ka taakuleen afku taakuleen dhiig ku taakuleen dhaqaale ku taakuleen adduun ku taakuleen sidaad ku taakuleen karta ku taakuleen wiilasha xukunka inoo haya maanta ee dunida ina tusiyay waxa aynu ka nahay dunida ina tusiyay iyaga aynu garab istaagno dunidu waxay ka marxaanti kacday adduunku wuxuu ka marxaanti kacay dawladda Soomaaliya in ay maanta marayso heerkii ugu macaanaa ee ugu fiicnaa ee ay 30 sano abid gaarto marka yaan laga dhaadhicin oo lagu sheegin dawlad ma lihi dawlad baan leenahay dhalinyaro ay noo kacday ilaahay baa in haleelsiiyay 30 sanadood baynu ilaahay baryeynay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu inaga aqbalay wuu inoo aqbalay baryadeennii wuu aqbalay yaynaan iska daadinin marka caanaha iyo nabadda ilaahay maanta uu ina siiyay oo inagu galaday yaynaan iska daadinin nabad iyo nolol bay waxay ula baxeen nabar iyo naxdin idinkay nabar iyo naxdin idinku tahay kuwa Soomaalinimada diidan ee qaran dumiska ahow idinkay nabad iyo naxdin idinku tahay Cabdiraxmaan Cabdu Shakuur cayayaan buu yiri cayayaanka Facebook war anagu cayayaan ma nihin laakiin cayayaan yaa u weyn barambara u weyn adigu barambara tahay daba ummadda Soomaaliyeed cayayaan maaha laakiin adigu barambara tahay barambaro Cabdiraxmaan barambaro Cabdiraxmaan barambaro ummadda Soomaaliyeed cayayaan maaha dhalinyarada Facebooka dawladda Soomaaliya ka taageertana cayayaan maaha war adiga barambara ah adaa barambara ah oo musqul dhex taagan oo qaran dumisa oo dawladnimo nacab oo ummadda Soomaaliyeed xadgudub iyo urku ah ka qaadan mayno inaad noo sheegto marka cayayaan anagu cayayaan ma nihin saaxib marka waxaad yeelaysaa nin yahow xilligiinii wuu isku dhamaaday u soo diyaar garoowa xisaab iyo maxkamad iyo in madaxa la idinka soo qabto oo aad kurkiina in la caseeyo u soo diyaar garooba wax kale idin ma harin ninka qoriga iska dhiga maanta wiilasha lagu go'doonsaday magaalada la yiraahdo Kismaayo iyo Garowe wiilasha ku go'doonsan waxaan hubaa inaysan xor ahayn intooda badan laakiin ninkii dani ku soo raaca qabiilow Soomaali baad la dagaalamaysaa ogow ninkii qori ku soo raaca ninka la yiraahdo daniyow waxaad u diyaar garowdaa inaad Soomaali la dagaalamayso Axmed Madoobe ninka qoriga la garab taaganow waxaad ogaataa inaad Soomaali la dagaalamayso ee aadan qabiil la dagaalamin wax qabiil la yiraahdo way isku dhamaatay Soomaaliyo wada socota oo ciidankoodii iyo dadweynahoodii ah ayaa Axmedow kugu soo socota wiilasha walaalo anigu Axmed lama hadlayo waliba waxaan la hadlayaa wiilasha dhalinyarada ee la marin hawaabiye la qalday war haday daruufi kugu hayso ka soo bax hadaad qabiil ugu dagaalami rabta laakiin ka joog naftaadu waxay ka muhiimsan tahay boqol Axmed Madoobe naftaada ka muhiimsan ee ka joog haddii se lagugu yimaado adoo dagaalamaya asxaan laguma samayn doono nin allaala iyo ninkii isagoo qori haysta loogu yimaado waa madax goysmo intaan lagu soo gaarin qubka iska dhig haddaan idin wacyi gelinaynaa ciidamada soo socda ee Harimacad iyo Gorgor
ma istaagayaan dalkooday xoreynayaan dadkooday xoreynayaan marka u diyaar garow in aad la dagaalanto haddaad la dagaalanto my brother waad dhimatay ogow waxba ka qaadi maysid waxba uma dhibaysid Soomaali oo dhan waay 30 sano ay Soomaaliya dagaalamaysid haddii qabiil wax ka qaaday haddaad qabiil wax ka qaadayso waa la arki doonaa meeshan qabiil ma soo socdo haddaad qabiil la dagaalami jirto madaxa ka haysan jirtay qabiil ma soo socdo qaran Soomaaliyeed baa kugu soo socday isu diyaari dhalinyarada la qalday waxaan u sheegayaa inay isdhiibaan oo aysan dhiigooda gelin oo uuna dhiigooda daadan oo ay dawladooda isu dhiibaan oo ay ogolaadaan Soomaalinimada Axmed Madoobe Soomaalinimo ma ogola inay ummadda Soomaaliyeed israacdo wuxuu dabada ku haysto waa Kenya waa keligii taliya loo taliyo ummadda Soomaaliyeed ee degan Kenya dhibaatada lagu hayo waad ogtiin reer Kismaayana taasun baa lagu hayaa qof raali ka ah ma jiro Axmed Madoobe laakiin xoog baa lagu haystaa ummadda Soomaaliyeed dib laydiisii haysan maayo reer Kismaayo waan idin soo soconaa waa la idin soo socdaa cadawga iyo heeriyada cadawgana waa la idinka kor qaadayaa insha Allah maalmaha soo socda ayaa la idinka kor qaadayaa ninkii la yiraahdo la oranayay dhaka weyne isaga laftirkiisa Kismaayo lagu haystaa ciidamada Harimacad waxaan idin sheegayaa ninkaasi waa la hayste waxa uu ku hadlaayo waa ku qasban yahay bilaa calaykum hadilina ninkaasi waa nin Soomaaliya waa la qalday maalin dhaweed wuu ka noqday laakiin hadda waa la qabtay Kismaayo kama bixi kartida la yiri waxa laga yaabaa xitaa in lagu hayo gacmaha inta laga xiro taangi lagu dhaxiro la yiraahdo dagaalan iska ilaaliya dhalinyarada Soomaaliyeed Harimacad u kala fiirsada ka suga xabada dhalinyaro badan baa idin soo socota idin soo raaci doonta dhaka weynaa kamida dhaka weynow la haystaa taayadeer adeer ciidamada Harimacad inaysan ku dilin ayaanu kugu qaadanaynaa waa lagu badbaadinayaa waa laga soo deynayaa Axmed Madoobe laakiin mar dambe qabiil ay isugu noqon inaad qabiil nin ku taageerto adoo Soomaali heli kara dhaka weynow ka weynow habeenna maandhood waxaan maqlayaa adoo xeebta Kismaayo ee maxal dhahay liido dhax ordaayo oo gudiri macnaha le qorqorow gudiri ku haya niyo baasho way ka hadlaysantaa duqiyo Soomaalinimada u soo noqo ummadda Soomaaliyeed way ku jeceshahay waxba lagu yeeli maayo ciidamada gorgor ee hadda soo socdaana way ku imaanayaan waa lagu badbaadinaa Axmed heeridiisa waa laga kor qaadaya don't worry waad qaldantay laakiin waa lagu qaatay ku qaata Soomaaliyeed ha lagu qaato dhaka weyne ha lagu qaato والله يستاهل loo taliyo waaye xukunku ka hoos baxay waa ahaaday odagayar halaga qaleeyo ciidamada gorgor iyo kuwa Harimacad waxaan leeyahay odagayar hala soo badbaadiyo madax furasho hala soo badbaadiyo bilaa calaykum wad soo badbaadin kartaan ilaahay baa wax badbaadiya okay ummadda Soomaaliyeed nin walba oo qabiil nin ku taageerayo ama ku taageeri lahayo dhaka yar ku qoos qaado dhaka weyne lagu qoos qaato haddaad qabiil nin ku taageeri lahayd dhaka weyne ku quuso quraanjay ku quuso waqtigii dhamaayo uu dhaqaaqi doonaa Axmed Madoobe Kenya ka timid iyo Ethiopia waa u noqonaysaa saaxib markaanu anagu damacnay inaan ku soo xoreyno ayaan ku soo xoreynaynaa Kenya Ethiopia ka xoreynaynaa laakiin horta waa inaad ku noqotaa Kenya ay ka tagin dabada sii qabso bilaa calaykum Soomaali ka dhamow qabiil kama shaqeynayo urur diimeed kama shaqeynayo argagixisa kama shaqeynayso sheekooyinkaas waa isku soo barxidmeen waa jarantahay sheekadaas waa la soo afjaray waxaan idinku bishaareynayaa oo aan idin sheegayaa ciidamada Axmed Madoobe ee Buulaxaawo iyo nawaaxigeeda intooda badan inay isdhiibeen kuna soo biireen dawladooda dadkoodana dhinac ka soo raaceen ayaan ummadda Soomaaliyeed idinku bishaareynayaa sidii galmudug ay nabad uga dhacday Buulaxaawo nabad uga dhacday iyo nawaaxigeeda waxa aan dib dambe looga cabsan doonin cadawga Soomaaliyeed ee dhibaatada ku hayay reer Buulaxaawo way isku dhamaadeen way dhamaatay way maratay waxa loo socdaa hadda waa Doobley iyo Kismaayona maalmaha soo socda gacanta lagu dhigi doonaa Axmed Madoobe waa la soo qaban doonaa jeelka la dhigi doonaa maxkamad baa la saari doonaa
wixii ku soo baxay ee xaqa ee ummadda Soomaaliyeed ku yeelato waa laga gudi doonaa qabiil waxba kama celin doono qabiil buu dabada kula jiraa laakiin qabiil waxaan tusinaynaa inay kala dhaqaaqaan maalinta ciidamada qaranka Soomaaliyeed harimo cadku ay ku dhawaadaan magaalada Kismaayo in la kala yaacaan baraya lama soo hortaagnaan karo 3 sanadood dhaqaale aad u adag baa ku baxay ciidamada harimo cadka ummadda Soomaaliyeed 3 sanadood bay wax allaale iyo waxay haysteen galiyeen ummadda Soomaaliyeed barnaamijka sheergareeya iswada gaarsiiya si fiican baynu u baashaali doonaa in walba xaalad walba meel walba ay marayso dalka Soomaaliyeed waynu la soconaynaa waynu subood gareynaynaa qof walba oo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa inuu isku xilqaamo oo in uu ka qaato dhisida dalkiisa qayb ka qaato meel un ku dhig oo qayb ka qaado ha noqon kii dalkiisa dumiyay horaanu dalkayga u soo duminay tii nagu dhacdayna waanu ogeyn waanu eednay ilaahay uu naga cafi ilaahay uu noo dambi dhaaf dalkayga dadkaanu qalad ka galnay ilaahu noo dambi dhaaf inta dhimanna ilaahu noo dhameystir sheergareeya barnaamijka hala sheergareeyo hala isgaarsiiyo waxaan u baahanahay dhalinyaro badan oo kacda oo dalka iyo diinta iyo hooyooyinka iyo caruurteena u kacda oo dalka badbaadisa oo ciidamada ku biirta oo ku biirta wax walba oo dalka laga qabanayo ku biirta loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed welcome soo dhawaada waa isku dhamaatay xilliga qabiilka hadii uu qabiil madaxa kaaga jiro niyaw Soomaaliyeed iska saar qabiilka haddaad nin Soomaaliya cuqdad u qabtay oo aadan ogeyn waxaad cuqdad ugu qabto iska cafi walaalka weeye dhinac ka raac ummadda Soomaaliyeed qoriga iska dhig qalinka qaado qoriga iska dhiga qalinka qaata ummadda Soomaaliyeed waxa waa laga ilbaxaa 30 sanadood baynu dagaalameynay wabillahi calaykum qoriyaha iska dhiga dawladnimada taageera nin walba dantaada u shaqo tag dalkaaga wax u qabo diintaada wax u qabo markaas aad dad noqon kartaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة الكاس إيجا إكتاي وأنا يوحسو شيء وإنه يسوي شيء وحين يسوي شيء كرنو أنت قاعدتنا إلهي هي نقدوا أنت كو عمل فشنا إلهي هي نقدوا مركا أمة الصومالية قربها يسقب صدا دعمها يسقب صدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوة ضدك اللايف ككسو عاية أمة الصومالية كهر لا يضلك الصومالية كهر لا يروح حنو شيء لها ولا لو حلقي قبيل كور لما هذا xilligii Soomaalinimada la jooga ninka ay ku hartay in yaro Soomaalinimo ah ku noqo oo la sheekayso sidoo kuugu aqli qaliyo oo wax kuugu sheego oo uu Soomaalinimada ku baro ka ku noqo hadaad qorina la soo ordina qoriga ka dhamaada iyo caydan aad meelaha la soo taagantiin anigu qofna ma balo gareenayo waxaan ugu talagalnay inaan ummadda wacyi gelino kuwa caytamaayo waan idin wacyi gelinaynaa waad qaadanaysaan waadna maqli doontaan waad marun baa Ilaahay maskaxdiina uu xaggayga u soo jeedin doona Soomaalinimada u soo jeedin doona idinma blogareynno idinma takooreyno waxaad sameeynaysan waad ku jireysaan live-ka haddaba dhowr iyo 20 qof oo soo caayi jirtay oo waxay rabaan iga sheegi jirtay laakiin maanta waxaan arkayay intooda badan inay guul iyo gobonimo ay soo qorayaan nabad iyo nolol intooda badan dhinac ka raaceen ilaa guusha waynu aragnaa meesha ku socoto taageeradeenu waa nabad iyo nolol meesha aynu isugu nimaanaa waa nabad iyo nolol meesha aynu u soconaa waa nabad iyo nolol qof walba waa nabad iyo nolol profilada ku soo wada dhajista anigu hadda ka bacdi waaban iska dileed garanaya qof aan ahayn macnaha nabad iyo nolol qof aan u saarnay nabad iyo nolol waan iska dileed garanaya maalmaha soo socda marka Kismaayo la qabto way isku dhamaatay haddaadan nabad iyo nolol ahayn dileed baad ka tahay friendskayga waan ka saaray ما أدبرنا ولا سارة مرك إسماعيل لقبته أو دولة جوليسته أو حوجيسته نبضي النول الوحنا هين ولا جسارة ولا جسارة يا سار ما الدولة ما هذاتك أو معناها أو أسر لين نبضي النول لما نبضي النول هين صاحبي لما نقول كربا شن تكون وحنكربا أنا وذا نبضي النول نقدر أو صاحبه ضيلا نولا سود هذا برنامج كشير قراية وامد ماشي عنه أحمد مدوبي كواش أحمد مدوبي أحمد دعوة اللي ذلك أحمد مدوبي اللي ذلك فيلم نماذج وهذا تيجي تسوقستي صاحب كي واي لكن ما شعله واي مرنا بتيجي سنة هاي لكن فيلم نماذج أو تيجي تسوقست هذا غير كا شيء كذي زو ويسكسر نمانة سا
مردو أيان دود وحو تاجر سنة أحمد بالي هذا أحمد حيس أيان دود أنا وحو تاجر سنة أهل السنة ما دود مركان أهل السنة كراي يعني كبها كشري وحو بالله هذا حاجة يا أحمد مذوبة إنه قالوا أحمد مذوبة إنه قالوا هذا أنا أحمد مذوبة كسر صار يا معلوم البطاقة البان كوشنا هني يسوي هذا أنا أحمد مذوبة كسر صار يا إن شاء الله تعالى ما أنت أحمد مذوبة اللي قد يستو أو كسماعيل لقبته الله يفكان سوق ليه وينو قرطة أحمد ديار متى ما أنت كسماعيل لقبته إن النبضي إنه لو نقنيسه ديار مكتها هي friendskayga saaxiibaday dhamaan ummadda Soomaaliyeed inta hadda ay daawanaysa meel walba aad joogtaan ummadda Soomaaliyeed waan idin jecelahay waan idin salaamayaa xilli hurdo waaye inaan seexdaan rabaa khayr iyo farmaajo waan idin salaamayaa insha Allah ta'ala 8 sanadood oo soo socota iyagun baan noo talinaya cid kale ma talinayso ku bishaaraysta ummadda Soomaaliyeed next 8 years oo soo socota waa farmaajo يا خير وأنا فرماجي سناننا وأنا خيرات سناننا إن شاء الله ويسكتنا ماتي نعب يا عدو الصوماليات ودا ماضي سدا ساي نوبل لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I love you Somalia I love you Somalian I love Somalia I love مدحض الندا I love everybody of Somalia وانشأنا هاي سودا وهذا وانا أمانة سداد إيدا وتين وأدي وشر جريسان إلى هاي هيدين شرفه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.